أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إله mahadiisu haddaan marka labada ku soo laabanay anagu wanaag isfareen maxamed iska reebin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryay dhammaanteenba ilaahay inuu naga dhigaa kuwii ku intifaaca wax loo sheegayo. dabcan mar kasta xalaqa oo muhiim ayaan bilownaa anagoo hadafkeenu u yahay wacyigelinta inaad ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan anagoo mar kasta la socono xaaladda waxay tahay maxaa yeelay ninka daaciga ah mar kasta waxaa muhiimsan inuu dadka uu ka wacyigeliyaa waxyaabaha dhacdada joogtada ah ayaa ah maxaa yeelay baahida markas way badan tahay. xalaqada hadda aan bilaabayo waxay tahay insha Allah aan bilaabi doono waxay tahay kala saaridda amaanta qofka iyo wadanka. xaqiiqatan tamjiidul ashqaas waxyaabaha waxay ka mid tahay xadaarada hoos u dhigta maxaa yeelay bini aadanka haddii la ammaano ammaanta laga badiyo waa kibriya. ina alinsaana la yadqa an rahu istagna. walidaalika in la kala saaro wadan jeceelka iyo qof jeceelka haddaad fiirisid caalam alislaami oo dhanba guud ahaan ama xataa markaad fiirisid Soomaaliya ama caalam alafriqi u dhexda Afrika oo dhanba gaalada markaad aragtid laba dhaqan ayuu kula dhaqmaan dadka. marka hore way gumeysteen dadka gumeysay ugu tageen oo inay xoog inay ku qabsadaan ku dayeen laakiin hadda casriga xoog waa socon waaye qof in la kor dago wadan in la duul dago oo xoog lagu maamusho waa suuragal weyn maxaa yeelay markastoo muddada ay socoto waxa weeye dadka caqli yeelanayaan aqoontooda kordhaysa xorriyadda ay dhadhaminayaan marka ma kusii joogi karaan. koonfur Afrika ayaa ugu dambeysay oo aragteen inay maalin cad ay celin waayeen. saas daraaddeed sababta ay tahay waxay tahay khayraadkaas iyo wadankaas iyo ummaddaas si ay u saytarayaan ama ay hoggaanka ugu qabtaan laba xaalo mid u weyn. marka nidaamka waxaa lagu bedelay markaan damba in alfawda alqallaaqa laga abuuro laba xaalo laba ulaa loo adeegsaday. wusha koowaad waxay tahay inay keensadaan dad ayaga matala madax boqorro madaxweyneyaal oo arkaysid ammaantooda waxay ka imaanaysaa reer galbeedka. ayagaa haasta telefishinada igaa dacayada haasta ayagaa maanta dhan waxay dhahaan hebel waa fiican yahay hebel wadani waaye ayagaa wadan uga dhigay. xataa marka dambe la soo ogaaday dagaaladii Jamaal Cabdinaasir dadkii u haasteen inuu ahaa nin qowmi ah la ogaaday inay ahaayeen ayaga inay saas ka dhigeen sanaacatul bashar qofay qaa'id ku sameynayaan si ay iyaga hooshooda ay u gutaan. saas daraaddeed ayay waxay kula dhaqmaan marka wadamadaas gumeysiga hadda waxay ku dhaqmaan inay qof ay ku abuurtaan shacbiga ninkay rabaan ay helin qofka ayaga ka yimaad inay ka tuurayaan ayagu adeegsanaysa shacbiga. waa aragteen Masar aan aragnay Tunis hadda ku socotaa. marka waxa cajiib laakiin markii dad Soomaali ama dad Muslim ah oo aan wacyigan ku nool oo u maleeyo nin madaxweyne oo gaalada amaantay inuu qabo inuu abaal ku galay ninka waxa la dadkiisa inay amaanaan ma inay amaanaan ajnabi inay amaanaan ma balse ahad ulama wuxuu dhihi jiray qofka waxa shubha ugu filan inuu nin gaal u amaano yiraahdo ninkan waa nin fiican weey nin oo fiican waa ninku yiraahdo shakiga meeshaas oo ka bilaawdo. marka waxay sameeyaan ayaga isma amaanaan marka qofka si loo sameeynaya qof amaanta la abaalay burburinaya hebelo saas way inja ninka madaxweyne weey ama wadan uu qabtay waxna waa leeyahay dhanac fiican waa leeyahay dhinac xun waa leeyahay. bini aadanka dhanac saasay jaan in shar wada socota ma jira laakiin ayaga jaanibka sharta la qarina jaanibka wanaaga kaliya iyaga keena waa la amaanaya. taas maxay keentay marka laakiin wadankooda ma arkaysid madaxweyne la amaanaya ma jira ra'iisul wasaare la amaanaya ma jira maxaa yeelay عمل أي ربان إنك وحير ربان محايد عي وحيرهن كل حركة فيها بركة إسبدل كاسها فائدة وجود فيري عجلة أنت وريجيسو ومرنا نكورايو نكلسو كورا نكل إيمانايو حزبه بالقبنا حكم كذا حزبك القبنايو فإذا وين بركة وين أخو جرت لكن خوفك مركو إسكف ديستماش ويرها أنا كبروا كينيا وعكينو إنه قوقو
ما أفر سنة اللي يقدر أفر كلا هذا اللي يقدر هذا اللح كلا اللي يقدر لا هاتن وسوي تاجن أركي حساب حيا لدت كانه وأشربوا في قلوبهم العجلة دت كمركز دم إن ظلمي أيام بدنا مكتئب مركز توقفك ورالي ونقنا اللي اسك حكومه ولذلك حركات بركة إن لا حتى في فقه أنا وحنا كسوق هذا عليه الماء الراكد الماء الجاري ما بيها صعد لا ينجس عليه النجاسة ما قبته بيها مركي وبيجي وياه الضرر أنتوا صعدوا وما بدأ إنسان صعدته أما إيه صعدته نجاسة دي يقف إكو كاذيدو هدي يقف إكو كاذيدو النجاسة ما نقنيش عادي بيها وسعنا يتجدد بيها هو لكن بيها فضيها جنوب كاذيدو شرط وحا إنه قولتين قالوا taas ayay u shardiyaan marka in oo lagu yiraaha adiga marka hore bihi oo aad samayn lahayd ama waxa marka xarakadaas isbedel waxa ku jiro marka say ugu hortagaan gaalada waxay sameeyeen waxay raali ka yihiin dictatoriin ay ku sameysteen wadamada Carabta iyo Afrika ama boqorku magacaaw ama madaxweyne leh kaas in uu soo noqdo inuu joogay rabaan maxay taas lak shacbiga faa'iido arintaas shacbiga faa'iido kuma qabto saas daraadeed ayaa waxaan u soo baxay anaga hadda wadamada Afrika anaga Soomaaliya fiiri wadamada waxyaaba Afrika gilgilay maxay tahay nin dictator qabsanayo marka wadanka ninka dictatorka qabsado dadku way dib bay marayaan maxay dictatorka asaga dadka waa cadaadina dictator in shacbi uu mafal marka injaazaad u khayra amaantiisa la badana mas'uuliyadiisa ma lagu dhajina asaga calaamadiisa meesha calanka laga qaada wadaniyiina baxday walaalka anaga waxaan rabnaa hadda Soomaaliya waxaan rabnaa dad aqoon laha ka buuxa waxaan rabnaa inay dadka ay bartaan ashqaastu way tagayaan bari qofkan amaanaysid waaba dhiman karaa xataa haduu la ridin waa dhiman karaa ma wadankii asma u xirnaana maya dadku waa ilmaheena dhalinyarada hadda oo meelaha joogto dhalinyarada waa in lagu barbaariyo xubbul wadanka harayo wadanka anaga dhan naga dhaxeeya cid ka xigta malaha waxa way difaaciis waajib inuu yahay wadanka inaan difaacno wanaagiisan ka fikirayna laakiin marka amaanta aan dhigno aan madaxweynaha markuu jidka Soomaaliya caleema loo masawirkiisa la haayo oo ma aragtay Yurub meelaas ku aragtay maxana xadaar ma ahanba maxay ilmaha yar fiir waxaan masawiradan hadda madaxweynaha la wareejinayo jidka loo istaagay airport loo safanayo waxaas dhan rasaqa ilmaha yar dugsiga dhexe iyo dugsiga hoos dhigtay wuxuu ku abuuraysaa madaxweynimo saas loo yeelay ما احترام ولا إنك مدحون بركي وسمعتي ودن كوي استانتي ودن كوي لكن لا نقدسه هذا وين لبرا ودن كوين مدحوينه ودن أي كوين مركا أنا حب الوطن هي سهل نشيدتك لقاضي وين النقضان كو حب ودن كيناي وودن دتك جعليسيناي لكن ما أنا وحنا الجعليسيو نينا الجعليسينا فيسبوك عاركيسا نينكستو أما معارض أما محافظ هذا مدحويني على الوضع نين كان قتر كان قتر ورنيك قتر ما إله إن عصبوا كيني كراو ولذلك مركا دعيسينيس ودنك مركا حده ودني طبعي كاتاي إله نينكاس نسوع علي أما نينكاس نو كان هدين وحتى إله ودنك نينك وخير وجر إله نو كان هذا دب كاتا ودنك جعشها إلا لكن مركا قف جعشها قفك ودقنته وعلى ذلك قف كان هدو قبلين جد هدونتو قف كان وإنه صون غذاء قف كان وتمجيد الأشخاص ذاتك الأمانة لا دينته أوجلين حتى دينته الإله سبحانه وتعالى وحليه في إن تنازعتم في شيء فردوا إلا ما أنت ذاتك وحل برا وحل هي كتابك إلهي رسولك يسوع نقضة حي وحل دي قف إنه نقضة قولي له أذيك قفك وعلم ولا قفا إذا سكره متك الاحترام تقديسك إن الكلا صار مدحوينه والاحترام علماء والاحترام لكن لما قدسينه ما حد داعي بني آدم بشر يصيب ويخطئ قفوا قالي كرا قفكوا كرا أيه ودن كمان أنت ما يحكم كريدي كرا مركا قفكيس تعرف إنا قريو شهادة زور وأنا قال نعم وكان قنا دتك علمي إلى سوق عينه حب الوطن ما بريم وحام بري نين الأمانة ما لين كسر هذه مركي لفرو هذه مقدوش لفرو نين كمان كسر مدحوينك على أمانة حلو أمانة وطنك هلا أمانة وأنا أقول على أنا قلت مركي كعنك سيلو أمانة كعنك لو أمانة كعنك إجازاتك كعنك هبل وقبتي ولا لا هي مركو دقالك دعي دتك باديها كي يمدور هذه دقيس جري وهم لا دولة إن لها مالك وارب اللخصدين لكن دي الله ودن كان نينك أسكله هذه يقول لك شيء لها أو لو بربار لها وحوله نوي نين كان وبيح كرا نين كرا إيمان كرو هذه ساس بقول على عسي وحف يعني لكن إنه نلاش أنا اللي حير هالقف قال كنا بالأدق ساس ويا نمب نينو كفي عينه ما نديدن وكفي عنا كرا لكن ما هي إنه أكدك هدو أسقط إنه واحد إيه هلابا إنه أكدك ما ودن كوين ودن كان أي كوين مركا وحن حلقات كان كهذا دون وحنا قدنا إن شاء الله حب الوطن إن كتقنو ذات كان أمانين ولا لك هذا إن أذرك هذا ما ي وحو قبتك وأمانة وحو قلدن وشيء
asaga naftiisa ha cabsado laakiin bini aadamka maanta hadii loo sacbahay asoo kale ma la helaya ninkaan weli waay ninkaan waa la soo dirsada maanta inaad dhehaysid ummadaha baabinaysa wadankan biri adaa duminaya adaa u qabtid wadankan aad jeceshahay laakiin wadanka ma jeclid wadankan aad jeceshahay wadanka ammaan ninka wadanka in wadankaana aan naga weyn waajibna oo islaami ay tahay in wadanka la difaaco kaas waa kan marka aan rabo inaan ku barbaarino dadka oo aan dhaafno gurbaankan la isku tuno gudoomiye gobolka soo baxay dad islaamo masaakiin la soo safa allahi kaale u sacbiya kibro qaadabe bas wuxuu la cid ka fiican ma le adig cid ka fiican ha jirtaa wafaqu kullu dhil ilmi alim culimada nimanka kale ka cilmi badan yahay fama baal nin oo xukun qabtay maalmaha la doortay waa adeega way qaadim way inuu isku ogaado waa loo sheego war dadka uu khadmaysa waa noo shaqaysa booya noo tahay wadanka booy u tahay booyisada am booyga dalda guriga ka shaqeeyaan adiga wadanka booy u tahay qaadima tahay laakiin wadanka ka weyn kama yeelin walidalka amruhum shura baynahum mas'alada baarlamaanada hadda la doorana la sheegay waxa la rabaa madaxweynaha inay u itlaaqaama iska taageeraan ma waa inay war wadankan ilaahay maxay u dhawaanaan go'aankaas miya wadanka mu anfacayaha ilaah waa ahaado ninka rab ha naco waa ku taageera madaxweynaha wadanka mu dhibayaha bax adaan ku soo magacaabo wiliga ay magacaabo xukunka ina ka degaa diyaar u ah intii qiyaamaha ilaa weydila wadankaaga gadatay heerkaas qofka gaari wadanimada saas gaaraysa laakiin anaga heer galbeedka inay eegana wadanmadooda isbedel ee markasta ay ka dhigaan oo madaxweyne kasta la bedelayo oo anagana aan rabno inuu ku hore iyo kii hore inuu sii joogo aan rabno waa mushkilo weyn waay waa masaladu waa in cilm Soomaaliya technology waa gaarta dhaqaale fiican mobilada internet waa ka shaqeeyaan laakiin maskaxdiga kobciga waa wali waxa ku jiro u baahan walidaalka culimada iyo ducaadka laga rabaa inay ka dhisaan dadka inay ogaadaan war dadka qof ha amaanin shaqadu qabta amaan la qofka ha amaanin qofkan bini aadam way wax u qarso ma taqaanid shahaado zuur ha u naqanin afku inuu ka wax fiican kaaga sheeko hoos qurinka wata iyo gaalo u kala xiriiri kara adma og qiyaamaha lagu geyna walaalka iska ilaal qof inaad amaantana awoodatid wadanka daa jacashaana ilaahayo wadankaas ninkii khayr ugu jiro ilaahu ninka dib uu joogo ilaah naga qabade wuxuu walaalka taas waa wadana dhab